اوكي عاو عشر كان ku saabsan yahay liquidity hore ugu soo hadalna demand structure caawa marka waxaan noqonaynaa step saddexaad oo liquidity ah kadib waxaa aadi doonaa all together in la isku qabto entry-ga trading plan FTMO-yada sida loogu gudbala waxaas aadi doonaa laakiin caawa waxaan ka hadli doonaa waa liquidity kaliya waa maxay liquidity haddaan dhahno liquidity waa maxay liquidity qofkii qorana ha qorto liquidity wax suuqan dhaqaajiyo waaye haddaan dhahno structure waxa ugu muhiimsan liquidity waa waxa kaliya suuqa dhaqaajiyo suuqana arkaysi dhaqaaqayo iskama dhaqaaqo wuxuu rabaa inuu order soo buuxiyo mar allaale markaa aragti suuqa hadduu kor u socdo wuxuu qaadaya liquidity meelahan taaliyo qaadaya hadduu hoos u socdo sidoo kale liquidity suuqa iskama socdo oo wuxuu leeyahay qorshe marka u socdo marka haddaa aragti suuq awood ku dhaqaaqayo meelahan waxaa yaala liquidity haddaysan hoostan liquidity taalin suuqan adagtaas uu kusoo laabto oo meeshan imaado wuxuu aadaa korkaas marka mar kasta suuqan wuxuu raadaa liquidity ereyga liquidity waxaa laga soo gaabiyey qof lacagtiisa stop loss loogu dhufanayo oo tusaale ahaan waxaa arki doontaa every strategy suuqa waxaa la isticmaala boqol strategy every strategy entrygeeda waxaa leedahay liquidity hadday noqoto trailing hadday noqoto xataa aniga waxaa isticmaalnaa smart money khaasatan demand and supply xataa waxaa arki doontaa inaan liquidity boqolkiiba aan noqon doono oo meesha trade galeen waxay noqon doontaa liquidity dadka isticmaala 1 2 3 meesha trade entry qaadana waxay tahay liquidity dadka isticmaala support and resistance everything is liquidity waxaan waa lala socdaa waxaa jira bangiyada oo bangiyo waaweyn jira suuqan waxa kaliya u dhaqaaqa waa liquidity hadhiin marka aniga waxaa isticmaalaa smart money oo waxaan ahay qof smart ku trade gareeyo oo entry-geyga ma noqonaa liquidity waa arki doonaa noocyada liquidity u kala baxaan entry-gan waa liquidity waa loo jeedaa inaa meeshaan laga galo nimankan waaweyn ee suuqa dhaqaajiya waa la socdaan meel alla meel kasta uu qofka suuqan retail traders retail aniga nahna oo maxay lacagtan zaid u yartahay qofka million ka isticmaalo billions waa wali waa retailers marka retail waa la socdaan dadkan every strategy ay isticmaalo retail traders oo hadda waliba smart money in loo soo gabo waa la socdaa marka entry-gaaga waa liquidity sida iska ilaalin lahayd adiga laga rabaa marka hadda waxaa baran doonaa liquidity waa maxay liquidity sidee iskaga ilaalin karnaa meeqa u kala baxaan sida cad suuqan waxaa jira 3 type of liquidity oo waa arki doontaa nooca ugu hore waxaa nooca ugu caansan oo hadda la isla fahmo qof kasta uu garanayo waxaa la lahaa equal low equal high korkaas waxaa tahay liquidity nooca waa nooca ugu caansan oo hadda ma xasuusta xataa markuu dambeysa trade ku galo waa xasuusanaa waqti waxaa jiri jirtay suuqa hadduu double bottom noo sameeyo meeshaan baa geli jirnay aan dhihi jirnay meeshaan waxay noo tahay suuqa wuxuu soo taabtay maxaa la lahaa hore usoo taabtay mar labaad u kalaabana waqtigaas ma jiri jirtay hadda laakiin meeshaan waa liquidity nooc kale waxaa jira idin leeyahay inducement waa arki doonaa tusaalayaasha iyo inducement idin waa liquidity kale sidoo kale inducement waxaa noqon karaa structure swing high swing low wuu noqon karaa waa noqosho sidoo kale hoosna wuu ka kaca nooca ugu dambeysa waxaa la dhahaa trend line liquidity marka saddexdan liquidity waa saddex liquidity ugu caansan oo sida iskaga ilaalin lahayd oo arki doonaa waa saddexda liquidity meel kasta meel allaale meel kasta suuqa ka dhaco oo la rabo inaad iska ilaalisid haddaan ka bilaabno kan oo inducement waxaa laga wadaa tusaale ahaan meeshaan waxay noo tahay maxaa la lahaa demand zone noo tahay demand zone-kan markuu kacayo demand zone maxaan ka dhigo waxaa ka dhiga break of structure hadduu break of structure sameeyo oo meeshaan ay tahay boxkan waa arki doontaa badanaa waxaa u isticmaalaa liquidity model legan hadduusan liquidity wadin boxkan hadduusan liquidity wadin soo laabashadiisa waxaa laga rabaa inuu suuqa u soo dhawaado demand zone-kan u soo dhawaado markuu u soo dhawaado uu ka dhaqaaqo dhaqaaqan sidoo kale ha sameeyo break of structure sameeyo markuu dhaqaaqo meeshaan maxaa soo galaya smart money waxaa ka hadlaynaa liquidity waxaa loo isticmaalaa badanaa smart money meeshaan maxay noqotay demand zone kale noqotay maxay demand zone noqotay waxay noqotay another break of structure dhacay break of structure kan dhacay dadkii smart money ku tira gareeyo maxaa dhahaya meeshaan waa meeshaan waxay dhahayaan buy u galeen maxaa dhacayo suuqan wuu soo laabanayaa xaggaan u imaanaya oo meeshaan waxaa loo isticmaali doonaa inducement area inducement
بدنا liquidity loo isticmaalo in lacagta loogu cuno smart money oo waa mar maxay ahayd sanadkan bilowgiisa ahayd qof Soomaaliyeed waxa ku tiri garejin every break of structure ama 1 minute ka dhaco ama 2 minute ka dhaco ama 1 week ka dhaco hadda aragno smart money waxa naqaanaa break of structure hadduu dhaco in meeshan buy lagu qaadanayo buygan hadduusan liquidity ku sameyn markuu dhaqaaqay maxaan ka wadaa markuu move kan leegan markuu baxay hadduusan liquidity ku sameyn soo noqoshada waxa la sameyn doonaa demand zone agtiisa laga laabana adina waxa lagu isticmaali doonaa inducement lagu isticmaala marka kani waxa loo isticmaalaa badanaa smart money concept dadka isticmaala SMC dadka isticmaala smart money badanaa loo isticmaala liquidity marka hadii adiga waxa tahay qof ku tiragalay smart money ama demand and supply qof ku tiragalay oo liquidity ha ku caan qofkan kala 1 2 3 isticmaala hadhihin trend line kaaga waa liquidity hadhihin maxaa yeelay liquidity eriga liquidity waxa laga wadaa meel lacag ay taalo lacagtaas oo ah in qof meeshas ku khaldamo oo trade ka galo stoppers laga dhufo adigoo saxan structure wax kasta ku saxnaa kadibna aad suuqa inuu habada aaday adiga stoppers waxa laga dhufto 1 pip stoppers laga dhuftay kadib habada aaday marka waa arki doona sida laga hortagayo waxyaabaha loo isticmaalo laakiin waa one type waa type kamid ah liquidity haddaan nimaano maxaa la lahaa double top iyo double bottom kana badan waxa isticmaalo استراتيجيدني ahayd 1 2 3 marka isticmaal jirnay maxaa dhigi jirnay meeshan waxa dhigi jirnay waa double top oo buy gali jirnay meeshan oo kale laba qof lagu cunaa kow waxa kamid ah dadka isticmaala break and retest maxay sameeyaan waxay isticmaalaan suuqa hadduu hoos aado taasi macnaheedu waxay tahay inuu jihada badishay oo hoos aaday lamid tahay iyaga marka maxay entry waxay ku qaataan hal mar dadkan isticmaala break and retest entry maxay ku qaataan confirmation entry laba entry qaataan entry koowaad oo isla markii hadduu suuqan soo jabsado waxay isticmaalayaan hadduu suuqan soo jabsado isla markii waxay isticmaalayaan waxay leeyihiin jihada badishay oo sell u gali doonaan faa'iidada loo bilaabo kadib suuqa uu la laaban doonaa kana waa the fast entry sidoo kale waxaa jira niman la leeyahay break and retest waxay isticmaalaan hadduu suuqa jabiyo neckline hadduu jabiyo 1 2 3 hadduu jabiyo double bottom kan wuxuu sameynaa suuqa waxay leeyihiin wuxuu sameynaa suuqa laabasho yaro sameynaa laabashada waxa u yaqaanaan confirmation entry meesha handada waxay ka qaataan buy ka qaato oo waxa sameynaa marka suuqan kaliya meeshan liquidity ahead bam stop loss kuwan smart money 1 2 3 waxa isticmaal stop loss lagu dhuftay kadib waxa soo galaya break and retest oo rabo inay meeshan buy u qaataan kadibna suuqa hawada soo aada meeshan waxaan noqonay another type of liquidity oo loo isticmaalo dadka oo qaacid isticmaal waxa soo haray liquidity saddexaad waxa la trend line waxa laga wadaa suuqan markuu hoos imaanayo markuu hoos soo socdo waxaana kale waxa la trend line liquidity maxaa trend line liquidity loo dhahay meeshan waxa yaala supply zone taal meeshan anaan supply zone waxa dhici doona dad entry number 1 inta ka qaadanaya entry stop loss loo dhufto anaa entry meeshan qaadanaya stop loss another entry saddexaad meeshan qaadanaya waxaana dhan waxa isku dhahaa trend line liquidity hala qaado kadib adiga buy gal misalka gal marka waxa jiro wax la leeyahay confirmation entry horta sida loo qaato liquidity entry laba entry jiro oo loo qaato habeenta waxa ka hadla doona internal range iyo external liquidity noocyo kala jira habeenta ma ka hadlayna caawa kaliya waxa rabnaa noocyadan aragno sidee entry loo qaataa tusaalaha meesha aniga waxa noo tahay demand zone noo tahay laba nooc entry jiro entry koowaad ee confirmation entry waxa la lahaa maya risk entry waxa la lahaa suuqa hadduu ku sameeyo liquidity tusaalahan double top hadduu ku sameeyo entry koowaad waxa loo qaadan karaa adiga suuq liquidity in la qaato suuqa markuu soo laabto buygan qaado waa very good entry fiican waay maxaa yeelay isla markii liquidity sweep lagu sameeyay waa dhacday this is the fast entry-ga waa risk entry maxaa risk entry ka dhigay liquidity waa la qaaday wali ma ogid inuu meeshan liquidity qoqoto supply dimanka in liquidity qoqoto marka confirmation entry waxaan qoqoro mar alla markii lagu qaado liquidity-ga waxa move kan sameeyay sweep ka sameeyay ha ku sameeyay break of structure kan qaado kana waxa la sweep entry alla sweep oo maxaa yeelay wuxuu ku sameeyay sweep ku sameeyay soo noqoshadiis marka qaaday wuxuu ka wanaagsan yahay kii hore kana ka wanaagsan entry hore aqaadanay markuu soo laabto hadaa kan qaaday kana boqolkiiba ka wanaagsan kii hore sidoo kale kii hore uu saxan yahay laakiin kaliya kana ka wanaagsan ka wada marka
labadan entry waa entry muhiim ah sidoo kale liquidity waxa loo isticmaalaa target xagee target ka dhigtaa tusaale ahaan hadda suuqan hadduu xaggan markuu imaanayo hadduu ku sameeyo imaashiis hadduu ku sameeyo hadduu saan ku imaado marka waxa target gareynay adigu waa ogtahay meesha inay taalo liquidity taalo liquidity haddii taalo ha sugin demand zone iyo supply zone ha sugin targetka ka dhigo above korkan ka dhigo maxaa yeelay waa qasab nimankan forex dhaqaajiya waa qasab liquidity ma loo jeedaa wadada meelaha sell soo gali doono adii target garee korkan target garee adigoo sugayo in dadkan liquidity wala qaado marka aniga waxa dhahnaa smart money waxa jirto qaacado noo qaas oo la leeyahay mise waa mahma adiga ha noqon qof suuqa saadaaliya noqon qof reaction ku ciyaara reaction waxa la don't predict just react maxaa yeelay hadda dhahan meeshaas waa liquidity tusaalahan suuqa markuu soo laabanayo markuu imaanayo hadda tahay meesha liquidity hadda tahay adii entry-ga ha sii dhigin markuu ku yimaado sug haddana fiir liquidity kala kor ma taala hoostan liquidity kala ma taala oo marka buy u gashid isla markii ma la arki doonaa anada liquidity oo hoos ma loo qaadi doonaa markaan kale waxaa la rabaa inaad kaliya suuqa reaction ku samayso waa markaa ku leeyahay sessionada London session New York session kaliya suuqa la sheekayso group telegram iyo waxaas iska dhig focuska kaliya suuqa noqdo hadda waxaa fiirinaynaa liquidity structure la isku qabtay tusaale ahaan anaga waxaa dhahnay suuqa markuu saan yahay xaggan markay noo tahay maxaa la lahaa lower high xaggan haddii lower high noo tahay lower high-gan haddii laga kormaro maxaa dhahnay automatically charge dhace oo suuqan wax sugaynaa inuu korkaas samaysto laakiin waxaa jiri doonta lower high-gaas oo lagu taabto oo suuqan weli hoos sii aadi doona maxaa ku dhahnay saas tusaale ahaan waxaa arki doontaa suuqa markuu laabto tusaale ahaan waxaa arki doontaa suuqa mar allaala markuu laabto kandalkii ugu dambeeyey wuxuu samaysan doonaa fiiq oo la bixi doonaa fiiqan macnaheeda ma ahan inuu suuqa ku sameeyey new lower high inuu ku sameey maahan new lower high inuu ku sameey maahan waxaa arki doontaa iyadoo suuqa fiiq la baxay dadaa meeshan george dhihi doontaa suuqa inuu kor u soo socdo no kaliya suuqan hoostiisa sii wadana maxaa yeelay structure weli lama jibin kaliya structure waxa lagu jibiyay liquidity structure korkiisa liquidity taalay liquidity-na la soo xunay oo sweep lagu soo sameeyay kadib suuqa shaqadiisa sii watay waa markii lagu leeyahay structure iyo isla shaqeeyaan structure is king waa number 1 waa structure kadib waa liquidity soo leeyahay marka hatta aragtay suuqa weeks lagu jibiyo adiga ha filan in suuqan uu ku sameeyay change of character inuu ku sameeyo kadib korsi wadana no kaliya waxa la soo qaaday liquidity oo badana waxa arki doonto inay saan dhici doonto liquidity ugu caansan aniga isticmaal waxa la lahaa liquidity aan badana waa arki doonta suuqa inuu ka dhacdo waxa dhici doonto kandala sell kandalkan waa sell suuqan waxa arki doontaa meeshaas waa high u dambeeyay kandalka sellka waa high u dambeeyay waxa arki doontaa kandalka sellka waa high u dambeeyay suuqan wuxuu sameysanayaa george oo jihadu bedeshay waxa la rabaa in sell isu aado sellka markuu soo laabanayo waxa arki doontaa suuqa inuu high-gan qaaday high-gan haddii la qaado oo week body maahan jir maahan haddii high u dambeeyay lagu qaado kaliya supply zone iyadoo meeshan ku oo waxa arki doontaa kaliya in fiiq lala baxay haddii fiiqaas lala baxay waxaa la lahaa sweep of high-gan lasoo sweep gareeyay high-gan laga kormaray noocaas waa liquidity high-gaas laga kormaray waa liquidity hadda uma baahnid liquidity kale uma baahnid oo waxa sugaya tareerka ku qaado liquidity marka waxa dhahnay liquidity is a must waa qasab weliga trade ha galin without liquidity waa qalad ugu weyn aad sameyn doontaa hada trade gashid without liquidity waxa dhici doonta marar badan dadka ugu wareeraan waxa arki doonta anoo lower time frame hoose aan liquidity ka raadinayn maxaa dhacay tusaale ahaan liquidity badana waa ka raadi kartaa lower time 1 minute waa ka raadi kartaa laakiin liquidity waxa shaqeyn doontaa markay tahay higher time frame waa marka ugu muhiimsan tahay liquidity oo waxa arki doontaa in liquidity lagu cuno mar allaala markii liquidity lagu cunay liquidity meesha taa lagu cunay adiga marka hadda 1 minute meeshan waa 15 minutes supply zone isla marka 1 minute tigtid ha ka raadin liquidity kala raadin maxaa yeelay this liquidity waa la cunay liquidity hore la soo cunay hadda wax kale korkaas wax kale ma jiro la cuni doono ma jiro
kaliya hadda suuqa wuxuu sameynaa meelahan hoose liquidity halka la yaalo liquidity kala hoostan yaala ala target gare doonaa habeen dambe arkaynaa si uu waxaan dhan isku qabto liquidity iyo meelaha la target gare doona marka ka hadlayn internal iyo external liquidity marka markaana kale waxaa la sameeyaa haddaad higher time frame liquidity ka heshid lower time frame liquidity ka raadin kaliya Philipka iyo George ka raaso entry-ga qaado haddaad another liquidity heshina waa more confirmation kaliya liquidity kale waxa raadin kartaa waa more confirmation laakiin uma baahnid inaad liquidity kale heshid waxaa jiro another scenario scenarios kale su'aalahan meeshan meeshan waa supply zone waxaa ku nimaanay markaan joognahay high time frame there was no liquidity maya markuu soo baxayay maahan markuu tagay maahan markuu soo baxayay entry markuu soo baxayay there was no liquidity markuu soo baxay there was no liquidity adiga marka hadhihin laabashada markuu laabanayo hadhihin meeshan 1 minute ka raadina 1 minute dad waxa jiri doona oo markuu suuq soo laabto waxay tagayaan 1 minute tagayaan geeskana waxa laga raadinaa 1 minute liquidity maya geeskaas 1 minute liquidity oo absolutely kama raadi kartid meeshan kaliya haddaad zonekan uu yahay 15 minutes supply zone hadduu ku yahay uu dhaqaaqa yahay 15 minutes supply 15 minutes dhaqaaqa hadduu yahay soo laabashada geeskan ha ka raadin liquidity ka raadin laakiin 1 minute geeskan waa ka raadi kartaa liquidity geeskan oo meesha trade ka qaadanayso 1 minute liquidity ka raadi laakiin move kan soo dhaqaaqa waa ereygan waa wareer badan ku jiro oo fahankiisa adag maxaa yeelay dadka badan waxa arki doontaa suuqa markuu soo laabto meeshan waxa laga calaameed doonaa markuu soo laabto qalinka hal mar yare suuqa markuu soo laabto waxa arki doontaa meeshan qof suuq qasbay muxuu qasbaa 1 minute meeshan 1 minute waxa ka dhacay inducement 1 minute waxa lagu leeyahay inducement 1 minute isku lagu sameeyay maya absolutely waa qalad markaana kale waxa la sameeyaa 1 minute meesha 1 minute inducement meesha ka raas 1 minute ka raas inducement oo kor 1 minute inta ka raaso laakiin xagaas 1 minute haba ka raadin kaliya inta xagan ka raadi marka waa higher time frame liquidity waxay ka fiican tahay lower time frame liquidity higher time frame marka ka hadlayo waxaan ka wadaa 4 hour iyo 15 minutes liquidity 4 hour 15 minutes ka heshay isku mid maahan markaad 1 minute iyo 2 minute ka raadinaysa marka markaana kale waxa la sameeyaa kaliya higher time frame liquidity ka raadi hadda tusaalayaasha gudbeena sida suuqa uu ku yimaado waa muhiim maalin kasta ku celceliya suuqa siduu ku yimaado zonka siduu ku yimaado waa muhiim tusaalahan example kan charts ka aadana example kan ugu dambeysina suuqa siduu ku yimaado waa muhiim maxaan ka wadaa suuqan hadduu yahay demand zone hadduu yahay sidoo kale liquidity hore ku siiye marka hadduu ku yimaado si awood leh v waxa dhahnaa v recovery dhahnaa hadduu si v ku yimaado oo sidoo kale meeshan liquidity lagu cunay hoostan liquidity kala ma taalo meeshan no liquidity maxaa yeelay suuqa wuxuu ku imaaday si awood leh si v ku imaaday markaana kale waxa dhici doonto suuqa meelahan kale adoo liquidity lagu siiyo waxa doonta in meesha lagu jabsaday oo suuqa liquidity kor ka raadinay muxuu suuqa u jabsaday adigoo liquidity lagu siiyo muxuu jabsaday hoostan liquidity ma taalo oo maxaa yeelay suuqa wuxuu ku imaaday si awood leh ku imaaday taa cagsigeeda oo suuqa wuxuu ku siiyay v recovery ku siiyay soo laabashada entry-gu loo yeelaa waa galeena laakiin hadduu suuqa ku imaado si correction hadduu ku imaado meeshan waxa taa liquidity aan target ka dhigto there is liquidity oo aan target garay karo markaana kale waa qaadan kartaa trade-kan laakiin markaana kale waa saxan tahay oo liquidity waa lagu siiyay laakiin soo noqoshadan suuqa sabab uu ku soo noqdo ma jirto markaan bilaabna casharka waxa dhahnay suuqa waxa kaliya dhaqaajiyo waa liquidity oo markuu kor aadayo wuxuu rabaa inuu liquidity soo sweep gareeyo markuu hoos aadayo waxa rabaa inuu liquidity soo sweep gareeyo laakiin suuqa hadduu si awood leh ku imaado v recovery awoodda waxa dhahnaa v hadduu si v ku imaado awood leh there is no liquidity to target liquidity aan target gareyn ma lahan markaana kale waxa arki doontaa inuu suuqa liquidity iyo zone-kaaga iyo wax dhan asoo isku jabsada arki doontaa oo saas sameeyay marka hadda waxaan sameynaynaa example yar aan fiirinaa audio okay waxaan ahay every zone wuxuu valid yahay hadduu liquidity leeyahay hadda tusaalahan lacagta waa lacag hadda dhaqaaqday oo entry-ga waan ku jira meeshaan fiiri zone-kan muxuu sameeyay inducement markuu soo baxay wuxuu sameeyay inducement uu sameeyay labadan isbarbardhig supply-ga zone marka loo soo tagay waa lagu laabtay inducement lagu sameeyay kana fiiri
demand zone ka marka laga tagay there is no there is wax ma jiro markaana kale wuxuu ku sameeyay inducement ku sameeyay kadib uu soo laabtay kan laakiin waxa arki doontaa supply zone waxa arki doontaa waa lagu sameeyay liquidity marka laba siyaabood waay markuu dhaqaaqayo hadduu liquidity ku sameeyo iyo markuu imaanayo inuu liquidity ku sameeyo markaas kale waxa la fiiriyaa suuqa markuu dhaqaaqayo liquidity muxuu hadda zone-kana kale waxa isweydiinay suuqa markuu dhaqaaqayo liquidity misi haa uu isi xaguu liquidity iga siiyay wuxuu iga siiyay meeshaan ugu siiyay meeshaan waa supply zone dada waxay gali doonaan sell meeshaan waa supply zone maxay ku noqotay break of structure every break of structure was supply zone break of structure meeshaan dhacay adiga waa ku degtay meeshaan waxa uu qaaday sell meeshaan sell ka qaaday sellkan maxaa u qaadatay sellkan waa saxan tahay maxaa la supply zone waxa dhacay action u dhigay laakiin hadda waxa arkaysaa in si awood leh lagu jibiyo maxaa awood lagu jibiyo suuqa wuxuu socdaa liquidity korkaas u socdaa marka waxaan ka tagay mawduuca liquidity la isticmaal iyo liquidity aan la isticmaalin su'aalahan waxa arki doontaa badan in suuqa u sameystay mawduucan waa mawduuc muhiim ah liquidity la isticmaal iyo liquidity aan la isticmaalin haddii suuqa markuu baxay ku sameeyo inducement ku sameeyo soo laabashadiisa waxaa la rabaa inuu soo laabto toos u yimaado zone-ka la rabaa zone-ka hadduu toos u yimaado inducement lagu siiyo yes liquidity zone-kan waa zone sax demand zone-kan waa demand zone sax demand zone-kan waa demand zone sax laakiin ku jirto hadduu suuqa saan sameeyo hadduu meeshaan ka laabtay liquidity waa la isticmaalay this liquidity waa la isticmaalay oo dada stop loss loogu dhuftay hadda waa la isticmaalay another marka soo laabashada zone-kan waa invalid maxaa yeelay liquidity model oo maxaa liquidity-gan waa la isticmaalay suuqa uu laabtay hadda zone-kan waxaa rabaa inay another liquidity abuurto move waxa rajeynaa inay meeshaas fahanteen maxaa yeelay badanaa waxa arki doontaa adigoo hal liquidity helay in suuqa hadana oo sameey doona markaana kale waxa la dhahaa liquidity waa la isticmaalay liquidity-gan lama rabo inuu weeks wax sameys lama rabo waxa la rabaa straight inuu zone ku yimaado rabo kadib ha laabto laakiin hadduu u dhawaado uu ka laabto liquidity-gan waa la isticmaalay noqoshadan waxa la rabaa inay sameys another liquidity ay ugu sameeyaan another break of structure ha sameyso kana inducement u isticmaala marka waxa rajeynaa inaad fahantiin oo ereyga liquidity la isticmaalay hadda tusaalahan kan fiiri kan muxuu sameeyay meeshaan waxay tahay supply zone korkiisa muxuu yahay inducement ma xagee laga helay waa supply zone entry-ga maanta meel ka qaato waa traderkaas isla marka toos lagu jibiyo okay liquidity waa la isticmaalay hadda marka zone-kan liquidity uu isticmaalay waa qaadan kartaa sell-kaaga waxa waa qaadan kartaa another type waxa waaye suuqa markuu ku tago without liquidity waa markaan kale suuq hadda markaan kale muxuu sameeyay markuu dhaqaaqay waxa saaranaa meesha u dambeysay madowga oo kanalka u dambeysay selka maxaa la fiiqan waa bay marka haddii meeshaan saaratid markuu baxay maxaa aragtay si awood loo ku baxay awoodda maxaa dhahay there is no inducement meesha inducement miya no inducement waxa dhahay waa inay break of structure sameysaa marka waa yimaaday inducement ku sameeyay hadda inducement yan waa traderka ma qaadan kartaa waa inducement another liquidity waxa la liquidity trendline liquidity waxa la suuqa markuu baxo markuu dhaqaaqo ha ii sameeyo trendline liquidity ha sameeyo toos waa jibidigan hay galo marka double top iyo double bottom ma waa waxa la basic waxa la basic waa basic liquidity adiga waa la socdaa in meeshan tahay liquidity ugu muhiimsan marka ta smart money waa inducement iska ilaali inducement sababta uu leeyahay waa liquidity ugu muhiimsan marka ta smart money maxaa yeelay adiga waxa rabo meesha inay ku qaldoon jaaro aad dhahdii demand zone inay dhahdii kadib demand zone hoosta yaalo waa liquidity marka waxa ku sheega laba nooc okay tartiibtani waa iska wallahi waa iska yaabana waxa arki doontaa laba nooc oo liquidity ah labadaas nooc waxa rabo inay iska ilaaliso marka ta smart money nooc ugu hore waxa waaye meeshaan kale wali ma ahan meel waxa jiro suuqa uu ku sameeyo week break salahan meeshaan waa demand zone kan waxa dhici doono inuu suuqa ku sameeyo week break ma aha si body ma ahan si week wuxuu ku jibin doonaa si week ah si week ku jibina adi markaan kale lama rabo inaad walwalishi ma ahan meesha supply zone kale ka raadis ma ahan iska fiiri suuqa ku jibi iska fiiri hadduu week ku jibiyay meeshaan waxa la lahaa sweep of low hadduu korkaas ka dhaco waxa la lahaa sweep of high
marka waxa rajeynaa maadaama aad tahay smart money labada liquidity saad u shuhay iska daa trendline iyo trendline kali waxa u isticmaalnaa si aan target uga dhigno target waa fahantaa wala trendline waxa u isticmaalnaa target tusaalahan suuqa hadduu si correction ku imaaday waxa target gareynay liquidity kore laakiin marka trade galaysi laba liquidity ugu muhiimsan liquidity soo inducement iyo equal low maya equal low mahane break of sweep of low sweep of high sweep of low sweep of high hal mar tusaalaha hadda ku tuso tusaalahan waxa arki doontaa meel ay ka dhacday sweep of hadda meeshaan oo kale waa dhihi kartaa tusaalahan hadda sweep meeshaan oo kale wuxuu ku sameysay okay double bottom kor ku soo taabtay laakiin sidoo kale waxa dhihi kartaa waxa dhihi kartaa meeshaan waa demand zone ka waxa lagu sameeyay sweep marka hadda aragti sweep kan adiga hadhiin isla markii hadhiin maxaa la lahaa suuqa waxa ka raadinaa korkaas maxaa yeelay wuxuu george u sameeyay maya haddii iska ilaali fiiqyada hadduu body ku jabiyo waa macno weyn u dhaxay body iyo week hadduu week ku jabiyo waa sweep of high highgan muxuu noqday maxaa yeelay meeshan waxaa yeelay a lot of liquidity oo jira double top inducement wax kasta yeelay markaan kale waxa la sweep of high marka badana haddaad fiiriso trade u dambeeyay aan soo dhig groupka laba liquidity bisa isticmaalaa no isoo laba liquidity kaliya isticmaalaa sweep of low sweep laakiin kani waxaa loo isticmaalaa kaliya kana kale waxaa loo isticmaalaa haddaad suuqa meeshan buy u qaadid haddaad meeshan buy u gashid tusaalahaan haddaad meeshan buy u gashid targetka waa inuu ku noqdaa in suuqan meeshan dhan sweep lagu sameeyo maxaa sweep u dhahay tusaalahaan meeshan waxaa ka dhici doonto a lot of break of structure badan dhacay marka adiga hadii smart money ku tira gareeya oo smart aan ahay oo la maro inaad dhahday kaliya trend dadka isticmaala 1 2 3 strategy waxaan ka wada trend strategy dadkaas kaliya lagu loo isticmaala maya all strategy waa leedahay tusaalahaan inducement kana la inducement oo laabtay dad isla markaa kadib lagu jibiyay marka waxa ardoonta a lot of liquidity badan ardoonta oo saas loo isticmaala marka adi zone refinement waxa jira waxa leeyahay zone refinement using liquidity zone kaaga badana iska fiiri haduusan liquidity noqdo mise noqon strategy waxa kala jira leeyahay goormee zone ka uu noqon doonaa liquidity yes zone aku sugaysay tusaalahan entry-gana habeenka aad entry-ga waxa ka hadli doonaa Philip markaad ka hadlayna Philip waxa arki doontaa liquidity tusaalahan Philip waxa uu naqaanaa demand zone lagu imaado isla markii lagu jibiyo demand zone lagu imaado isla markii lagu jibiyo Philipka xagan oo ka dhacay this Philip marka aad qasab ma aha suuqa markuu soo laabto qasab ma aha inuu supply-ga duxusmay qasab ma aha waxa jira waxa leeyahay extreme waa the best entry extreme waxa ka wada supply zone uu shareey waa the best entry waa entry uu safe garaysan waa entry aan lacagtaada markaan oo kale waa laba siyaabood dhici doonto siyaabada koowaad oo suuqan markuu baxayay there was no liquidity or whatever markuu baxayay there is no liquidity whatever wax liquidity ma lahayn markaan oo kale waxaan rabaa markuu soo laabto inuu u dhawaado inducement iyo abuur hadduu inducement isiiyo okay hadduu inducement isiiyo Philipkan waa valid entry hadduu inducement u siiyo waa the first criteria labaad waxaa jirto suuqa markuu dhaqaaqayo wuxuu ku dhaqaaqay saana ku dhaqaaqay oo inducement u siiyo markaana kale markuu soo laabto entry-gan qaado waa laba scenario koowaad liquidity waxa dhacday markuu koodu suuqa dhaqaaqay scenario labaad wuxuu ahaa soo laabashiisa liquidity dhacday scenario saddexaad waxa waaye markuu suuqa dhaqaaqay there was no liquidity markuu imaanay there was no liquidity waxaan ka wadaa
suuqa markuu dhaqaaqay there was no liquidity markuu imaanayay there was no liquidity soo laabashiisna liquidity ma lahayn markaan oo kale zoonkan adi hadhihin Philipkan وماشي waa Philip oo maxaa yeelay waa supply zone awood leh supply zone maxaa yeelay demand zone oo jabiyay hadhihin hadduusan liquidity lahayn ama demand zone ha jabiyo ama short ha jabiyo wuxuu ha jabiyo hadduusan liquidity wadan asiga liquidity noqonay asiga loo isticmaalo doona inducement ahaan suuqa wuxuu ku soo laaban doonaa maxaa la dhahaa extreme kaas ku soo laabana marka waxa ugu muhiimsan waxa fiican suuqa in isku qabatay everything expectation order flow lagu daray rules in control lagu daray liquidity saddexdaas marka aad saddexdaas ku qabato entry-gaaga waa wax ka soo laaban doona jiro waa the best entry expectation order flow iska soo fiiri kadib waxa fiirsaa rules in control kadib controlkaas liquidity ma leeyahay waa the best entry saddexdan hadaad qoraal ku qorto darbigaaga hortiisa computer ku yahay dad ku sawirto entry inta la qaadan iska fiiri order flow muxuu ii sheegayaa order flow wuxuu sheegayaa in suuqan hoos u socdo okay sidoo kale hosting control wuxuu ii sheegayaa hosting control wuxuu ii sheegayaa in demand zone meeshan la jabiyay oo supply zone uu control ka hayo okay liquidity maxay sheegaysaa liquidity waxay sheegaysaa yes supply zone control ku haya laakiin supply zone control ka hayo liquidity motor okay markaan kale waxa sameynaa supply zone control ka qaadana markasta waxaan ka celceliyaa waa saddexdan waa saddex ugu muhiimsan haddaad tahay qof smart man ku tiragalay expectational andaho equal andahe expectation order flow rules control labadan waa hal cashar ugu hadlay muuqaalkaas ku laabo kadib liquidity muuqaalkan liquidity isku qabo waxa sameynaa su'aalaha waxa recording ka joojina su'aalaha waxa ka dhiganaa habeen dambe waxa ka had